muddo dheer dadka magangalyo doonka ahi waxa ay Masar u arkayeen marin sahlan oo looga gudbi karo dalalka reer galbeedka maadaama uu dalkaas ku yaalo goob istiraatiiji ah isla markaana xeerarkiisa socdaalku ay sahlanaayeen Soomaali badan ayaa dalka rajo biday wixii ka dambeeyay sanadii 1990kii waqtigaas oo dagaalo sokay ay Soomaaliya ka bilowmeen laakiin qaxoonti badan ayaa hadaba ku go'doomay muddo dheer Masar joogay iyadoo qaar kalena gabood fallo loo geystay Maxamed Xaraare ayaa la kulmay qaar kamid ah gabdho ay ka xoogsada Masar oo dhibaatooyin ay u geysteen dadka ay u shaqeeyaan magacyada saxda ah ee gabdhaha la kulanay waa la qariyay sameeliro xiriiriyo gooniya ayaa la siixinayo aqal ahayn oo sida dhinaca balkoonka oo kale cuntadana madbaxa ayaan ku cunaa oo ceesh baa la siin jiray cuntada iyagu sameystaan ma siiyaan baday leeyma siinaynin talabaad markay ii yaarayaan bay khadaamo bay igu yeeri jireen waa nolosha ay ku nool yihiin gabdho badan oo qaxooti ah oo ka xoogsada dalkan Masar horta maalintii ugu horeysay gacantu inay bilaabanto dhiriga iga gubtay ahaydoo dhirigii bay igu soo tuurtay ahayd aan shaqeynay dhirigii baan ilooba dhirigii baa gubtay oo igu jiiday marka inaan kala meesha joogtay intii bay iga celisay asli waa 22 jir waxa ayna ka mid tahay Soomaali badan oo dalkan u timi inay ka helaan nolol ku meel gaar ah ama inuu dalkan u noqdo buunda ay uga gudbi karaan badda Mediterranean-ka qof farta gajoona awoodi karan ishan sirkada oo shaqaysan kara garaadkaaga inuu kula taasas ayaa iyana sidoo kale la kulantay dhibaatooyin adin iyo aragba waxyeeleeyay saliid iyo deerisay markay deerisay kulmayl ka dhigtay iyo maxay hayday igu saliida ee eeg hayo iga dambeysay dambeeyna bisi biyo ka shubtay markay saliidu ku daadanaysaa anaygu daadanaysaa Soomaha inta iga daatay waa caabibaday hadaa caabiday waa ooy markaan soo orday darajadan ka soo dhacay lugtaas ay ugu dhigtay caadi calaaduna soo qalaan maragmada tan farto waxay noqotay sanadkan hay'adda qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in ku dhawaad 7,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ay diiwaankeeda ku jiraan tiro kale oo inta ku dhawaanay hay'addu diiwaan gelin ayaa ku nool magaaladan Qaahira waxa ay qaarkood wajahayaan cabsi gelin joogto ah talabaad waxay ku cabsin jirtay waan ku tarxiilin oo ku kaxaynin wadanka oo askari xaban kuugu yeeray adu waxay sidii ahaataba cidi ka soo saartay waan waayay markii dambe habeen kamid ah ayaan ka baxsaday taxi baan isku soo raacay habeenkii taxiilisaan uga lahaa suuq lacaash dhigay ayuu ugu keenay habeenkii ugu dambeysay ugu boodabeliyay bay la dhacday habeenka baalkan dhulka lagu fiiqo gabood falla ayaa loo geystay qalbiga ayay ka gubanayaan kama sahadli karaan dumar badan oo qaxooti ah oo ku sugan dalkan kana shaqaysta waxay si joogto ah tacadiyo uga kulmaan dadka ay u shaqeeyaan in badan oo aan la xiriiray way ay ka gaabsadeen inay nala wadaagaan dareenkooda cabsi ay ka qabaan in la bartilmaameedsado iyo in la tarxiilo awadeed dhibaatooyinka la soo gudboonaada jaariyadaha Masar ka shaqaysta maaha kuwa qarsoon waxaan la kulmay Kayf iyo Ibrahim oo ah dhalinyaro filimada sameeya oo gacanta ku haya filan ay ugu magac dareen Caaliya oo ay doonayaan inay bulshada u bidhaamiyaan tacadiyada ka dhanka haweenkan filinka waxa sababay in igu dhasho maalin kasta waxa arkay dad oo dhibaato la soo kulmeen gabdho shaqeynayeen oo dad u shaqeynayeen oo dib la soo kulmeen mise wax ku dhaceen mise xaalado la soo darseen xun oo ka soo gaartay dadka ayaga u shaqeynayeen markii filinka waxa uu tala galay labada dhinac in laga arko yani dadka loo shaqeynayeen inay arkaan qofkii shaqeynayeen inuu arko soo uu xaqiisa u garto yani qofkan ugu dagaalamo xaqiisa qofka kale markuu arko ugu naxariisto ogaado qofka qof bil aadan inuu yahay yani uusan ahayn alaab mise mashiin adiga ku shaqeynaya fahmaysa Qaahira waa magaalo qurxoon oo leh taariikh iyo ilbaxnimo qadiimi ah laakiin waxa ku dhex nool qaxooti badan oo ay ilmadu ka qubanayso kuwaas oo aanan rajo ciirsi iyo caawimaad midna haysan Maxamed Xaraare BBC Qaahira BBC-du laba jeer ay la xidhiidhay dawladda Masar inay sharaxaad ka bixiso tacadiyadan iyo sida ay ula macaamilayaan ilaa iyo imika wax jawaab ah kamaanu helin